rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayaa saxaabadiisa qaar ka mid oo meel fadhiya ayuu nebigu u yimiday markaa buu nebigu ku yidhi maxaad hadal haysaan bal ii sheega markaasay yidhahdeen saacadda qiyaamada ayaan hadal haynaa waa zamankee waa 1400 oo sano ka hor intay saxaabadu meel ay fadhiistaan bay ka sheekaynayeen saacadda qiyaamada ee soo socota goormay dhici doontaa annaka uga xaq leh inaan maanta hadal hayna saacadda qiyaamada markaa buu nebigu ku yidhi innahaa lan taquuma saacatu xataa taraw qablaha 10 aayaat saacadda qiyaamadu ma dhacaysa buu nebigu yidhi imani mayso ilaa ka hor aad aragtaan 10 calaamadood buu nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam 10kaa calaamadoodi waa calaamaatu lkubraa ayaa la yidhaahdaa laakiin waxaa jira ashraadu saaca wax la yidhaahdo calaamaatu suqraa iyaku waa la arkay maanta haddii la tiriyana maanta magaalo walba waa laga helayaa calaamaatu suqraa laakiin nebigu saxaabada xadiiska wuxuu ugu sheegay saacadda qiyaamadu inaynan dhici doonin ilaa aad aragtaan ama adduunyada dusheeda lagu arko 10 calaamadood buu nebigeenu yidhi calayhi salaatu wassalaam fadakara addukhaan waaddajaal ودابة ونزول عيسى بن مريم وطلوع الشمس من مغربها وخروج ياجوج وماجوج وثلاثة خسوف خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من قعر عظم تحشر الناس إلى محشرهم بنبي يري عليه الصلاة والسلام وعو رسول كأنه يري ساعد قيامة مدعي دونتو إلى الله أركته من على مضاد مركب النبي شاقيق سمد كيمن يبو نبي شاقي كما في نص القرآن فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم وعو نبي شاقيق سمد كيمن يبو نبي شاقي وعاكلو نبي شاقي دجال بو نبي شاقي عليه الصلاة والسلام وأدوية بقعت كمتالو إلا دجال أمريا dadkana wuxuu ka dhaadhicinayaa inuu yahay rabbigii isagu dadka abuuray inuu yahay buu ka dhaadhicinayaa wa sharru ghaa'ibin yuntadar ayuu nebigu yidhi faddajaal fa sharru ghaa'ibin yuntadar aw isaaca wa saacatu adhaa wa amar dajaal buu nebigu sheegay inuu imanaya aakhira zamaanka maanta zamankan maanta ka warrama saxaabada rasuulka ridwaanullaahi calayhim ajmaciin axaadiista dajaal ku saabsan markuu nebigu uga warramaayo waxay yidhaahdeen waxaan moodi jirnay sida uu hadalka nebigu quluubtooda u saamaynayey dhirta naga dambaysa inuu dajaal ku jiraan u malaynayna asxaabtu yidhahdeen waa 1400 oo sano ka hor weeyaan waxaas uu nebigu ka warramaayo innagana maanta zamankeenna ka warrama corona virus baa maanta caalamka o dhan wareeriyo la hadal hayaa xanuun amar ilaahay ku socda oo jundun min junuudillaahi ah oo qofkii ilaahay ugu talagalay mayna qof kale aan ku dhacayn ayaa caalamkao dhan labadii isku timaadda maanta ay ka sheekaysanaysaa saxaabaduna 1400 oo sano ka hor waxay ka sheekaysanayeen dajaal inuu soo socdo marka uu nebigu dajaal uga sheekaynayana bay yidhaahdeen waxaan u malaynaynay yaqiinta khabarka nebiga ay u qabaan dhirta naga dambaysa dajaal inuu ku jiraan u malaynayna asxaabtu yidhahdeen dajaal buu nebigu sheegay inuu adduunkao dhan maraayo janno iyo naar wax u eg buu wataa waxau nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam qof allii qofkii isaga rumeeye raacana waxaa jannada u wato ayuu ku tuurayaa dad allii dadkii isaga inkira yidhaahda rabbi ma tihide kaafir dajaala ayaa tahayna naartuu ku tuurayaa markaa buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam 10 aayadood ee suuratulkahf ninkaa akhrista maalintii ilaahay fitnadda dajaal waa ka badbaadiyaa buu rasuulku yidhi wa fii riwaayatin 10 ka dambena nebigu waa sheegay waxaa kaluu nebigeennu sheegay calayhi salaatu wasalaam dajaal inuu adduunkao dhan uu saamayn oo uu galayaa makiya madiine ma galaya buu rasuulku yidhi wa fii riwaayatin xadiistu waxay sheegaysaa 4 meelood dajaal ma galaayo jabalu tuur buurtii nebi muuse calayhi salaam loogu waxyooday ee ilaahay nebi muuse uu kula munaajooday ma galayo dajaal makana ma galaayo madiinana ma galaayo qudusna ma galaayo buu rasuulku yidhi masjid alaqsana dajaal ma galaayo laakiin shiriiriin dadka sharka badan leh munaafiqiinta ee makiya madiina dhexdeeda ku dhuumanaya ku nool
ayakaa dajaal bannaanka ugu baxaya buu rasuulku yidhi calaamadda saddexaad buu nebigu yidhi waa daabad dhulka ka soo baxaysa buurta safa la yidhaha ina asafa waalmarwa sakhradaa bay ka soo baxaysaa iyaduna adduunyadoo dhan bay maraysaa qof kastoo adduunyada ku yaallabay yuu nebigu yidhi waa ishaabadayn waxa qof walba uu yahayna way ku qormi doontaa buu rasuulku yidhi muuminka muumin bay ku shaabadayn kaafirkana kaafir bay ku shaabadayn waxaa kaluu nebigu sheegay inuu imanaya nebi ciise calayhi asalaam yanzil calaykum ibnu maryam xakaman cadalan fayaksir asaliib wayaqtula alkhinziir wayadacu aljizyata nebi ciise calayhi asalaam ayaa dushiinna ku soo degi doona buu rasuulku yidhi xakaman isagoo xaakima shareecadda islaamku adduunyada ku xakumi doonaa wuu cadaalad fali doonaa dulmiga maanta aqal walba iyo mujtamac walba saameeyey uu ka rafici doonaa saliibka gaaladu ay yidhaahdaan nebi ciise lagu xidhoo lagu deldelayna uu jebin doonaa cadaaladda islaamku adduunyadoo dhan ku xakumi doonaa buu rasuulku yidhi waxaa kaluu nebigu sheegay yaajuuja wamaajuuj in iyakana la furi doona buu rasuulku yidhi waa laba ummadoodoo ku abtirsada yaafith binu nuux bay ku abtirsanayaan ummaddiiba waa 400,000 mid iyaka ka mida ma dhinta baa la yidhi ilaa uu arko 1,000 wiilow isagu uu dhalay oo qaan gaadhoo dagaalka galay mooyaane ummaddaani adduunyada waa lagu soo furi doonaa xataa idaa futixat yaajuuju wama'juuj wahum min kulli xadabin yansiluun waa ka qur-aanka ilaahay noogu sheegay waxaa kaluu nebigu sheegay ashamsu buu nebigu yidhi calaamadda lixaad waxaa ka mida cadceedda oo ka soo noqota meeshay ka dhacdo laba marxalo qofku intaynan soo gaadhin hadduu toobadkeenna buu nebigu yidhi toobadda ilaahay jalla wacalaa waa ka aqbalaa laba marxaladood naftu markay ka soo baxdo jidhka oo dhan ee halkaa hunguriga dhuunta iskugu timaaddo hadduu yidhahdo qofku markaasaan ilaahay u soo noqonayaa toobaddaa laga aqbali maayo nacam hadday cadceeddu galbeed ka soo noqotona albaabkii toobadda waa xidhmay buu rasuulku yidhi 3 meeloodoo adduunyada ku taallana buu nebigu yidhi dhulka ayaa gu'i doona khasfun fi lmashriq dhulka cadceeddu ay ka soo baxdo waddanno dhan iyo ummado dhan baa la waayi doonaa calaamadda 7aadi waa taas calaamadda 8aad buu nebigu yidhi khasfun fi lmaqrib galbeedka adduunyadana waddanno dhan iyo ummado dhan baa dhulku la gu'i doonaa calaamadda 9aad buu nebigu yidhi khasfun fii jasiirati alcarab jasiirati alcarab dhexdeedana dhul iyo ummado dhan baa la waayi doonaa calaamadda 10aad buu nebigu yidhi walaalayaal waa naar ka soo baxaysa cadan magaalada cadan gunteeday ka soo bixi doontaa banka qiyaamee dadka ku soo ururin doontaa buu rasuulku yidhi 10kaa calaamadood baa ka soo horreeyey buu nebigu yidhi saacadda qiyaamada 10kaa calaamadood maanta wax ka sheekaynaya waa yar yihiin xanuun bay ka sheekaynayaan xanuun gaajay ka sheekaynayaan abaar bay ka sheekaynayaan waxaasaa maanta adduunya dadka la weyn maanta bishani markaa waa bil barakaysan